Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalyaal joogtaan soo dhawaada. waan idiin mahadcelinayaa dhammaan insha allahu fadlan muuqaalka like saara. jadwalkeenii iyo qaabka aan u shaqaynin waxbaa iska bedelay, waxaan ugu wacan sababo badan oo jira darteeda. su-aalihii oon aan si toos u gudbinaynay jabtar koowaad alxamdulilah waa dhammayn, waa ku guuleysanay. laakiin mar walba waxaa loo fiirinaya, waxa la sameynaya waqtiga la taagan yahay iyo baahida loo qabo ayaa loo fiirinayaa. marka aniga oo ka duulayo cabasho badan oo ardayda janaalka ku xiran iyo ardayda kale ee meelaha kale aan u dhigo iga timaada, aniga oo ka ambaqaadayo, waxaan dib u bedelnay jadwalkii ahaa talaadada iyo khamiista iyo jimcaha in su-aalaha laga shaqeeyo. su-aalahaas oo ku socday qaab serious ah. jabtar koowaad alxamdulilah lagu guuleystay, natiijo weyna laga gaari, balse waqtiga ma ka gaarnaa waay. haddee jabtar two haddaan bilowno oo serious xataa aan ku wadno, ama xataa berdhey xataa annaga usoo daynayna xataa aan ku wadno, xataa way adag tahay in jabtaradii dab la gaaro, su-aalahoodii ka jawaabideeda in la gaaro way adag tahay. marka insha allahu ardayda sanadkan 2020 ardayda baranayso, waxaan marka go-aan ku gaaray in aan kala shaqeeyo su-aalaha chemistriga kuwooda ugu adag haddii aan la idmo wa, laakiin ma aha hadda waxaan aan ka shaqaynayo, waa markaan casharadaan dhamayno haddii aan la idmo. annagoo u fiirin waqtiga aan haysano imtixaanka, sida hadda ifafaalaha muuqato waa may. sababta waxa keenaya waxaa waay may in aan dhahno hadda aan ifafaalaha aan u dareemay may inay tahay, waayo haddii abril dhexdeeda imtixaan uu jiri lahaa, hadda ayaa diyaargalowgii wixii oo kale la samey lahaa. marka saa darteeda laba sabab waa ugu wacan tahay bishii barakeysneed oo nagu soo wajahan, iyo sidoo kale cashiradii oo in la dhameeyo baahi weyn ay dadka u qabaan, iyo sidoo kale aniga oo aada u mashquulsan oo arrimo badan maalmahan ay haystaan, oo aada iyo aada u mashquulsan, oo xataa cashirada xataa sida a ka aragtaan waqtiga badan soo ahaan jiray isla qaada jirnay aysan ahayn, oo waqtiga uu yaryahay aan kusoo koobo. xataa waqtiyada qaar waxaan duubaa waqti saqda dhexe ayaan duubaa, waqtiyada qaar aan duubaa oo haddana marar qaar subaxdii oo kale anoo shaqo u degsan oo kala duubo. haddoo kale muuqaalkan waqtiga aan duubaa mina subax waaye, waxaana laga sugayaa shaqo oo saaka oon haddana aan rabo arday inaan tartan u qabto laga rabo. howlo badan ay ugu furan, anigoo howlahaas tirada badan lagu furayn, haddana waxaan isku dayaa inaan berdhey haddana kuwa sii wado cashiradii. dadka qaarna ha dul qaateen insha allahu. waxyaabaha caqabada keenaya waxaa ka mid ah, dadka qaar waa dad aada iyo aad aan u ammaanayo, dadka qaar laakiin ma fiirinayaan duruufta macalinka, waqtiga duruuftiisa ka haysata fiiri maayaan. dadka qaar waxay soo qoraan maadada maawadid, iyadoo aan joogno meeshii ugu dambeysay alxamdulilah, oo arkaan berdheyna aan soo gelino, haddana waxay cadaadis uga sii saarayaan dadka qaar in aan cashiradii timeka aan badiyo. marka waa laga fiican yahay inaad bressure ay say saarto adiga cashirada wax yaraa harsan. insha allahu intaas yaroo harsanna waxaan ku dadaali doonaa inaan joogtayo. intaan baan soo joogtaynay, way ku maasan yihiin dadka qaar, dad aada wax u fahmaya waaye. dadka qaar oo dareemaya mashquulkii waxyaabaha qiimeynayo aadan ugu mahadcinaa. ma badno dadka inta badan bressurka keenayo ma badno, maasha allah waan idiga mahadcinaa. marka su-aalihii qaabkaasaan u joojinay. maxaa xal marka? waxaa xal ah inaan ka shaqeyno su-aalaha kuwooda ugu adag, su-aalahaas oo aan insha allahu aan kasoo qaadan doono marka aan dhameeyo maadada haddii alla idmo. marka aan dhameeyo isbuuca soo socda haddaan dhamey weyno labada maada, isbuuciisa kale oo isla soonka ah waan dhamey doonaa haddii alla idmo. waqtigaas oo ah waqti bil barakeysan ah. xataa caqabada imaan doonto waxay tahay ani xataa hadda inaan buubsiyan ku dadaali doonaa, sababtoo ah habeenkan inta badan cashirada duubi jiray. habeenka maadaama cashirada inta badan aan duubi jiray, habeenkina waqti cibaado waa hadda kadib. marka insha allah waxaan ku dadaali doonaa cashirada bisha barakeysan ee ramadaan inta nooga dhiman xoogooda inaan insha allah buubsiino. waabay nala geli doontaaye, laakiin bisha barakeysan ee ramadaan inta bilowgeeda xataa inaan dhameyno aan ku dadaali doonaa haddii aan la idmo. saasna ogaada maalmahan waqtiga timeka oo yar waxaa keenaya anigoo aada iyo aada u mashquulsan, haddana saa darteeda doonaynin inaan casharka janaal soo gelina, inaan dadweynihii aan ka baajinin.
marka saas ogaado haddii aan dhahno marka ujeedka ugu weyn waxaa marka warkayga aan kusoo koobay haddii aan dhahno su-aalihi waa iskala shaqaynaynaa chemistryga chapter 2 in serious aan ku wadaynaa ma dhamay karno waxaana jira su-aalo aad iyo aad baahi badan looga qabo arday badan oo janaal ku xiran isoo weydiiyeen su-aalahaasaan insha allah ka shaqay doonaa waa marka aan dhamayno labada maada haddii aan la idmo ayaan ka shaqay doonaa haddii aan la idmo saasa inoo ballan ah qaabkaas inoo ahaa doonta insha allah haddana saasaan kusii wadi doonaa ballantu marka kama bixin waxaa igu kalif waxaa waa inaan saa sameeyo dhowr baabood oo jira kow haddii aan seriouska aan ku wadno baahidii macnaha waxaa ka weyn baahida jirta oo ah in casharada la dhameeyo kow second serious haddii aan ku wadno waxba macno ma keenayso oo waxaa ka muhiimsan ardaygii in looga shaqeeyo su-aalaha ugu adag in looga shaqeeyo oo ah maadada oo dhan chapter 8 ilaa chapter 2 inta udhexaysa chapter 1 waaba ka shaqeynay wixii adkaa wixii kale marka waxba nuxur ma keenayso marka inaan su-aalo serious aan wado waxba nuxur keeni mayso waqtiga nooma saamaxay marka wax igu kalif waxaa waay inaan saa sameeyo waqtigoo noo saamixi waay darteed balan kama bixin anigu saas inaad dadka qaar ay u fahmaan ayaa muhiim ah haddana waqtigaan ahay waan sii wadi doonaa jadwalkan saas ahaa doona haddii alla idmo maalmaha marka casharada si toosaan u wadi doonaa haddii alla idmo qaabkaasay nooga socon doonaan waadna ku mahadsantihi dhammaan dadka halkan ku xiran qaabka wacan insha allah anigana waan dadaali doonaa insha allahu labada isbuucoo soo socotana insha allahu waan dhamay doonaa haddii isbuuca soo socda aan dhamaynin kiisa kale waan soo xiri doonaa labada maada kadibna wixii qorsho inoo xiga waan ka wada ballami doonaa oo video gooni ah ayaan ka wada dhigi doonaa waa mahadsantihiin hadda cashirkeena aan galan walaalayaal qaabkaas ayaan hadda kadib u shaqay doonaa haddii alla idmo aada iyo aadaad u mahadsantihiin dadka qaar oo kale aada iyo aad ay igula socdaan daily lifekeyga iyo qaabka aan u wado aada iyo aad ay ula socdaan way mahadsan yihiin waxa jiran way qiimeynayaan waad ku mahadsantihiin marka insha allah waxaan ka bilaabaynaa casharkeena saaka haddii alla idmo conservin in la ilaaliyo biodiversity in la ilaaliyo waaya in la ilaaliyo biodiversity waxaa loola jeedaa kala duwanaashada noolayaashu in la ilaaliyo waaya conservation in la ilaaliyo biology waa maxay noolayaashu in la ilaaliyo is the management waa maamule is the management waa in la maamulo of a nature dabeecadda rabbaaniga ee kownkan ka jirta in la maamulo weeyaan and of earth's biodiversity iyo sidoo kale and of earth's biodiversity waa maxay iyo sidoo kale kala duwanaashada noolayaasha ee dhulka korkooda in la ilaaliyo weeyaan with the aim taas ujeedadooda ay tahay of protecting waa in la ilaaliyo species maxaa waay almuhim ujeedada ugu weyn waxaa waaye sinjiyada in la ilaaliyo sinjiyada kala duwan ee noolayaashu in la ilaaliyo waa their habitats iyo sidoo kale sababadooda sababada waxaa loo yaqaanaa goobta uu nolosha ka heli kara ama dhulka nolosha uu ka heli karo in la ilaaliyo sidoo kale ana ecosystem iyo geyiga guud in la ilaaliyo from excessive waa maxay from excessive rates heerarka kala duwan from iyadoo loo fiirinayo excessive xaddiga rates heerarkooda of extension ay ku dabargo-i karaan iyadoo markaasi la fiirinayo dabargo-ooda qaabku ku imaan kara and the erosion iyo sidoo kale erosion waxaa waa nabaad guurka of biotic interactions of biotic interactions waa maxay falgalada noolayaashu ay samey karaan nabaad guurka maxaa waa dhirti nabaad guurta dhirtaasi waa noolayaal dhirtaasi deegaanka laga jaraayo in la ilaaliyo marka waa qaabka marka erosion waa in la ilaaliyo maxaa la ilaalinaya sidoo kale erosion nabaad guurka of biotic interactions ee noolayaashu falgaladooda in la ilaaliyo marka aada iyo aada muhiim u tahay dhirta in la ilaaliyo dowladaha aada ku horumaray way diidaan in dhirti la guro oo dhuxul laga sameeyo waxa weyn oo dhirta loo guran waxaa waaye dhuxul in laga samaysto marka waa qalad in dhirti la guro qalad weyn waaye marka iska ilaaliya mar walbana ku fikira cilmiga waxa u baranaysaan waxaa weeyaan inaad hadhow kale ku dhaqanto dadka qaar waxay isweydiinayaan macalino maxaa sabab waa dhirta waa maxaa loo diidayaa haddii meesha ay ku taal maxay faa'iido leedahay faa'iidada ay leedahay waxaa weeyaan kulamaa dhirta deegaanka ay ku badato carbon dioxide-ka wasaqda dadka ay meesha kusii daayaan marka saameyntii ay yeelahayd inay yaraata ay sabab u noqonaysa waayo carbon dioxide-ka dhirta toos ay u qaadataa oxygeentana sidoo kale oxygeentana way iska soo saartaa oxygeenta annagaa u baahan oxygeenta aan u baahnayna biyuurii noqotaa oo nadiifay ka dhigtaa carbon dioxide wasaqda aan ku day lahayna
iyada ayaa qaadato oo waxay ka samaysataa cunay ka samaysataa. marka ilaahay awoodiisa waay. marka dhirtaasi haddii deegaanka ay ku yaraato oo deegaanka ay eber ka noqoto saameyna imaanayso oo in the environment health in the environment ayaa imaanayso. manaa saas ogaataan weeyaan. waayahay it is iyada markaasi an interdisciplinary interdisciplinary waxaa kala duwanaansho weeyaan. sidoo kale it is iyada sidoo kale an interdisciplinary waa maxay? waa in la ilaaliyo sidoo kale kala duwanaanshahooda. interdisciplinary waa kala duwanaanshada weeyaan. subject waa maxay? maadooyin kala duwan in la ilaaliyo. drawing on iyadoo la sawiraayo natural waxyaabaha rabbaaniga ay yeelan karto ana social science iyo sidoo kale caafimaadka cilmiga caafimaadka cilmiga bulshada in la ilaaliya. ana sidoo kale the practice waa maxay? iyo dhaqangelinta of natural resources ilaha rabbaaniga ee guud ahaan in la ilaaliyo. dhaqangelintooda maxaa waaye? in lagu dadaalo oo deegaanka dhirta hadday ku yartaa lagu beero oo deegaanka aada loo ilaaliyo nadaafadiisu iyo sidoo kale dhirti sidoo kale in aada loo ilaaliyo iyo sidoo kale sinjiyada kala duwan ee noolayaashu in la ilaaliyo. sidoo kale the practice waa maxay? la dhaqangeliyo of natural resources ilaha rabbaaniga. ilaha rabbaani waxaa kamid dhirtan meesha kasoo bixaysa kamid in la ilaaliyo weyaan management maamulidooda. natural sources aan fir marka the biosphere waa maxay? the biosphere lakabka sare dhulkaan ku noolnahay kaarantal waqti xadirkan supplies waa maxay? wuxuu soo gaarsiinaya the basic needs waa maxay? baahiyooyinka asaasiga for over 6 billion humans. wuxuu gaarsiiyaa in ka badan wuxuu gaarsiiyaa baahiyooyinkaasi ee asaasiga wuxuu gaarsiiyaa for over in ka badan 6 billion humans. waa maxay? balaayiin qofood 6 bilyan oo qofood oo dad ayuu gaarsiiyaa kuwaasoo ku nool in the form of a natural resources ilaah rabbaaniga ee dhulkan kana ilaahay uu ku sameeyey ay ku nool yihiin. waayo the human population mujtamaca bini aadamka continuous waa maxay? waa inay sii wadaan to grow waa maxay? to grow waa maxay? dhulkaasi qaabka uu ku socdo grow qaabku dhulkaasi markaasi waxay ugu soo baxayaan. ana sidoo kale the growth iyo kasoo kubarbaaridda waxyaabaha kasoo baxaya is not evenly xitaa distributed waa inaysan noqon kuwa isku qasan. waa inay noqon throughout gabi ahaanba the world markaa fiirso caalamka. waa inaysan noqon caalamka oo dhan marka laga hadlayo waa in laga ilaaliya waxyaabahaas kasoo baxaya waa in la kala ilaaliya. hadda tusaale sababtu waa maxay? dadka qaar waxay isweydiinayaan macanow beeruhu maxaa loo falaa? cawska kasoo baxaysa ma cawskaas maxaa loo falaa? cawskaasi waxaa loo falayaa ujeedada ugu weyn loo falaya waxaa cawskaasi faa'iidada ugu weyn waxaa waaye amaba cunno ka dhigta ama u baahan keliya waxaa waaye animalska weliba herbivoriska caws cunayaasha haddii marka dhirtaas meesha lagu aamuso waxaa yaraanayso dhirta ilaa maxay ka samaystaa cunadeedu? waxay ka samaystaa sunlightka ay ka samaystaa sooma sunlightka ay ka samaystaa iftiin qoraxda iyo carbon dioxide ay ka samaystaa. waxaa meesha ka imaanaysa cuno yari shortage food meesha imaanaysa maadaama dhirtaas yararka meesha kasoo bixaysa cunay u baahnaani. cunada marka competition in the food dhacayo cunada inay ku tartamaan. dhirtii marka loo baahnaa dalagii loo baahnaa oo galeydii iyo raashinkii loo baahnaa ee dadka ay cunayeen loo baahnaa ayaa waxaa ku yaraanayo qaabka cunada u samaysanayo. marka dalagii wuxuu noqonaa mid finish uu noqonayaa ama mid quality aan lahayn oo aan si fiican u bixin. oo masagadii iyo galeydii loo baahnaa yaanyadii wixii dhan meesha looga baahnaa aan si fiican u bixin. maxaa sabab u cunadii ayaa competition badan la sameeyey. dhirtaasi tirada badan leh cawskaas irarka tirada badan leh meesha wuxuu keenaa marka dhirtii kale in cunada ay si fiican samayso weyso oo dhirtii kale tay ay laha weyso. saa darteed marka beerta saasaa loo falaa. marka waan samaynaa Soomaali haddii ana wixii waan dhaqan gelinaa laakiin sababtu haddii maanta qof walba Soomaali kamid beer ma la fala haddii lahaa waa aqaana sababta loo fala haddii maxaa waa lahaa ma sheegi karo. laakiin sababta loo falo waxaa leedahay waxaa ugu weyn dhirtaan la falaayo dhirtii kale ay cunadii markaasi competition kula samayni si marka dhirtii loo baahnaa ama dalagii loo baahnaa si uu si full ugu qaato cunadiisii aysan dhibaato kale u gaarin darteeda loo falaa leedahay. anaa saas ogaataa weeyaan. kadib waa taa la waraabinayo biyahaas iyo markaas iskaashay waxaasoo dhan
ay ka samaysanaysaa cunadeeda marka waayahay aan sii wadna sheekade waa ka marka gebi ahaanba marka distribution ka dhigi kara marka in laisku qasin xitaa laisku qasin yaa ka dhigi kara cawskaas yaryarka ah ee xoolaha ay cunaan ayaa markaasi in laisku qasin oo laga saaro oo laga fala oo kala muhiim weeyaan waaye dhirta kaligeeda waa sinji weeyaan ka mid ah sinjiyada ugu muhiimsan waayahay an increase in la ziyaadiyo human population sidoo kale in la ziyaadiyo growth koritaankooda increase ziyaadadooda the need waxaa imaanayso baahi for natural resource loo baahnaanayo natural resource loo baahnaana oo ah in meeshii dhir badan lagu abuuro waayo sababta oo waxaa waaye carbon dioxide badan soo baxaya carbon dioxide kaas badan soo baxay marka waxaa natural resources ba in la sameeyo weeyaan waayahay to supply si loo gaarsiiyo the basic need is baahida aas-aasiga ah ee of the population mujtamacaas meesha ku nool si loo gaarsiiyo waaya haye one approach waa maxay one approach waxaa waa halka ugu dhow markaan firin to use loo isticmaalayo natural resource marka loo isticmaalayo kol waxaa loo yaqaanaa sustainable use waa maxay waa isticmaalka marka ugu nugul weeyaan markaan firino taasoo ah is iyada demonstrated waaye warka aan isku xirno marka qaabka sustainable marka fiirinoolyaasha waxay aad iyo aad ugu nugul yihiin use waa maxay ilahaasi aadkii aadka resources natural resourcega aad iyo aad inay ugu nugulaadaan ayaa ka imaanaysa bini aadam markaasi is a demonstration in taasoo ku imaan kara demonstrated in burbur ku imaan karo ilahaasi marka rabaaniga meesha kasoo baxayo burbur ayaa ku imaan karo waayahay just as sidoo kale name sida magacaaba implies uu kaaga muuqdo sustainable use waxaa loo jeedaa means waxaa loo jeedaa using in la isticmaalo weeyaan resources ilaha at a rate heerarkooda kala duwan in la isticmaalo weeyaan in whichtaasoo they can be replaced waa maxay markaasi meesha dib loo keeni karta in loo soo dego tusaale hadda dadka baadiyo oo kale waa aragtaan waa guurguuraan sooma maxaa sabab inay guurguuraan waxaa sabab u ah dhirta markaasi meesha ku xiran iyo daaqa xoolaha iyo sidoo kale meeshaasi in beer laga dhigi karo la deegaansii karo waxaasoo dhan beer yaa laga dhigi karaa meel webi uu ka agdhow yahay sooma meel uu webi ka agdhow yahay ama biyo ay ka agdhow yihiin laga dhigi karaa meesha haddaysan laakiin lahayn oo lagama dhigi karo way adag tahay meel saxaro hadda cid beer ka dhiganaysa ma jirto waa qaabka marka haye they can replace it waa maxay markaas in dib loo soo they can be replaced dib ay usoo degi karaan oo recycled waa maxay marka replacedka waxaa waa dib usoo degidda waaye or amase recycled ama dib in loo soo fiiriyo deegaankaasi oo dib loo deegaanmaysto waaye waa isku mid labadeeray while halkaasoo preserving iyadoo la ilaalinayo the long term waa maxay waqtiga dheer oo environmental health iyadoo markaas la ilaalinayo waqtiga dheer ee deegaankan caafimaadkiisa uu lahaa karo ama uu sii jiri karo of the biosphere deegaanka caafimaadkiisa fuulu noqon karaa markay deegaankaasi ku taalo dhir aad iyo aad u badan marka ay ku taalo sidoo kale uu noqon karo deegaankaasi habitat uu noqon karo oo habitat maxaa waaye laga heli karo macnaha meel la deegaansado laga heli karo cunna sidoo kale laga samayn karo deegaankaasi cunada ugu weyn oo laga sameyn karo waxaa waa beerta laga sameyn karo maxaana sabab oo beer in laga sameeyo inuu webi ka ag dhawaado meeshaas waayahay haye sidoo kale conservation ilaalinta of resources ilahaasi in la ilaaliyo include waxaa ku jira reduce in la yareeyo the amount of resources waa maxay in la yareeyo sidoo kale markaasi conservation of resources include waxaa ku jira reducing waa maxay markaasi reducing waxaa loola jeedaa in la yareeyo ilahaas ilaalintooda waxaa ka mid ku jiro in la yareeyo reduce in la yareeyo the amount tirada of resources waa maxay ilaha waa in la yareeyo ilaha that are consumed ee la isticmaalayo ilaha la isticmaalayo tiradooda waa in la yareeyo isticmaalka tirada badan in la joojiyo si loo ilaaliyo conservation si loo sameeyo oo ilaalin conservation of resource loo sameeyo marka waa qaabka markaa firiso caalamka markaa firsada soomaalidu waxa dhirtaan la jarayo waxyaabahan inta badan dadka qaar oo ka damqana waa yaryihiin dadka aqalada bas ka damqado oo bas cilmiga leh dhirtaas caalam markaa firiso ciroole iyo yaraanba dhir la jaraya aaday ugu soo horjeesanayaan qof dhir yar xataa gurigiisa hortiisa ahaado dhir jajaraya aaday ugu soo horjeesanayaan waayo waxay ogyihiin faa'iidada caafimaad ee ay u qabto dhirtaanay ogyihiin dhirtu aad iyo aad annagaa ugu baahan real markaan ka hadlayno
ha marka waxa ujeedka u weyn oo cilmiga u baranaysaan waxaa waaye in aad ku camal fashaan oo wadankiina aad wax ugu qabataan weeyaan. maanta arday walba oo loo aqriyay jabtarkan biodiversity-ga maanta kadib waa inuu ku dadaali karaa ama uu ogaan karaa faa'iidada ay leedahay dhirta ilaalinteeda, waa inuu ogaan karaa hadda kadib. waayahay haye waa qaabka marka markaan sii wadno waay marka wuxuu leeyahay consumed isticmaalkooda waa in markaasi la yareeyo si markaasi conservation of resources loo helo. waayahay